dheerayn maayo caawada heesihii iyo fanaaniintii iyo annagoo weliba yurub ka kala nimid yaa idiin soo soconna markaa waxaan doonayaa inaanan waktiga ka qaadin dadka oo aan ku soo dhaweeyo xildhibaanka waad garanaysaan axmed jaamac oo agteeda taagan anigu istiri waa xildhibaanka ugu quruxda badan yurub marka xildhibaanada eegay wadan xildhibaan oo barnaamijka inoo furi doono ku soo dhawow makarafon waad mahadsan tahay suudaan caawa sharaf bay noo tahay inaad caawa janeef nala joogtid xafladda nagala qayb galaysid marka ugu horeysa waxaan ku salaamayaa bulshaweynta soomaaliyeed ee halkan isugu timi salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii sharaf weyn bay inoo tahay caawa inaan xafladdan soomaaliyeed isugu nimaadno in aynu xusno soomaalinimada midnimada xorriyadda iyo qarannimada soomaaliya xafladdan waa xaflad soomaali kasta baana xafladdan iska leh albaabaduna cid kasta way u furan yihiin marka soo dhowaada waa xafladdeennii runtii aad bay farxad annaga noogu tahay caawa inaan waqti aynu wada qaadanno halkanna baashaal baynu hadhow waynu baashaalaynaa khudbadahana waynu yaraynaynaa dadku waxay u yimaadeen inay dabaaldegaan marka waxaan rabaa inaannu isdhaafinno guddigii soo abaabushay xafladdan runtii cid allaaliya ciddii kaalin weyn ka qaadatay xafladdan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa oo gabdhuhu ugu horeeyaan oo wiilasha iyo ragguba ay ku xigaan oo muddo laga soo hadlayay oo runtii dadaalkooda keentay caawa inaynu halkan isugu nimaadno marka waa guddigii qabanqaabada waanu isdhaafisanaynaa kadibna waxaa inoo hadli doono kelmada inoo jeedin doona professor cismaan xasan oo runtii ay sharaf inoo tahay caawa inala joogo marka habeen wanaagsan waxaan xaggan kusoo dhaweynayaa guddoomiye yaasiin aljeex oo kelmad odhan doona kadibna waxaa ku xigi doona guddoomiyaha abaabulka xafladdan iyo isku xidhka maxamuud bidde kadibna waxay noo furmaysaa qaybtii ofishalka ahayd ee uu adeer cismaan xasan uu hadka inoo furi lahaa waa xaflad wanaagsan soo dhowaada soomaaliyana ha noolaato bismillah asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu sida ilaahay maqlayo ugu horreyn ilaahay baa mahadle bacdallahi waxaan mahad celinayaa soo qabanqaabayaashii xafladdan soo qabanqaabiyey quruxda badan sidoo kale waa idin mahad celinaya kasoo qaybgalayaasha wiilal iyo gabdhaba aad baad mahadsan tihiin saad u soo ajiibteen uga soo qayb gasheen xafladdani laga yaaba inaad isweydiisaan maxay daaban tahay maxay liga kusoo beegay xafladdan waxaan ugu talagalnay maamulka cusub ee ka hirgalay gobollada waqooyi Soomaaliya ee loo magac bixiyey Khartoum State of Somalia sabab socotaan waqooyiga Soomaaliya waxaa hadda ka jira laba maamul yahay Somaliland midna yahay Khartoum State of Somalia markaa kaawal qashiistii oo keegiisina hor yaallo baan idinku casuunay inaad nala soo dhaweysaan oo ka turjumaysaa midnimada Soomaaliya isku xidhka Soomaaliya Soomaali isjecel Soomaalida ka turjumaysaa ayaan idin soo dhaweynaynaa ayaad nala soo dhaweysaan idinkuna ka soo qayb gashaan maqaafinaad ka ahaataan waxaan rabaa inaan xafladdan idiin sheego inay tahay xaflad Soomaali oo dhan u furan aan qabiil gaar ah u furnayn koox gaar ah u furnayn Soomaali oo dhan ku casuuman tahay isku mid u tahay waxaa inaga reeban oo keliya inaynu wax inaga dhexdeena kala fogeynaya ama dhib inagu keenaya inaynu iska dhex nidhaahno ama isku nidhaahno magaceennu waa Soomaali dalkeennuna waa Soomaali waxaynu u dadaalaynaa waa midnimadeenna iyo wada jirkeenna marka taasaanu annaguna isnidhi
maadaama aad marin muhiima ku taalin oo deegaano marin muhiima ku yaalliin dadka Soomaaliyeed inay ka soo wada qayb galaan oo gacmaha isku qabsadaan oo aad isku xidhi kartaan taasoo u sameeyay xafladda idinka waa mahadsantihiin marka la soo dhawaada asbaabta inta la fahmo ee qofka rabaa qofka rabaa inuu xafladdiini idka xafladdiini idka wada insha Allah soo dhaweeyna aad wada mahadsantihiin salaam alaykum dhaweeyo waa maxamuud bide maxamuud soo dhawow oo sacabkiina maxaa ku dhacay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال المروي waxaa sharafna in caawa xafladda quruxda badan ugu soo dhaweeyno anagoo ajaaliyada Switzerland ee Khartoum iyo Puntland oo iswata waxaa idin leenahay soo dhawaada caawa madashaan idinkeedii goblan tahay waxaan rabnaa inaan maaragtay maamulka Khartoum oo cusub aan taageero ugu muujino anoo ku hadlayo guddiga ama qaabada xafladda magacooda waxaan idin leeyahay soo dhawaada warbada looma baahna caawa hala baashaalo sooliba wada qaadayna Khartoum ha noolaato waan maqli jiray anigu dad fara badan oo idinka waa maqli jireen codkiisa adeer soo dhawow marka koowaad professor aawo sacad yoortane professor muddo aad iyo aad u dheer buu bulshada Soomaaliyeed noloshooda ku soo dhex jiray wax badan buu ogyahay waxaan xusuustaa markii ugu horreysay ee la yidhi BBC-da dib ha loogu noqdo bal taariikhihii laga soo tabiyey 70-aadkii 80-aadkii waxaan xusuustaa isagoo ka soo warramaya baytulmaqdis isagoo ka soo warramaya professor السلام عليكم halkan soo gudbay ma maqlayaa imika waan salaamayaa anagu runtii qoraal baan ka qora qalabka waa laga badiyaa dad oo hadda doonana way ka dambeyn doonaa insha Allah waxaan doonayaa inaan taabto waqtiga dheer ee la soo maray taariikhdeena inaan yar ka xusho waana macna weydiina Soomaaliya macna weydiina waqtiga dheer waxaan ka soo bilaabaya waqti fog oo intiina halkan joogtaa intiiba badan ama dhammaantiinba aydan dhalanba waxaan ka soo bilaabayaa farxaddii igu weynayd taariikhdayda oo la odhan karo waa farxaddii ugu weyneyd ee Soomaaliyeed farxaddaasi waxay ahayd taariikhdeedu May 1900 arday baan ahaa markaas wax ku barta dalka Ingiriiska maxaa markaa naga farxiyey waxaa laga farxiyey wafdi Soomaaliyeed oo ka yimid dalkii la oran jiray British Somaliland inaga Ahmed Ati Ibrahim Allah u naxariisto iyo wafdi uu wato oo ka mid yahay عالي جرى جامع الله أول حريص أفر بيها آيات أحمد كيشد على آياتها إبراهيم نور وحيد ورمى آيات أبوها وفتقاس ولنا يمد ويمدنا وهذا الرجال يشتغل إنجليز قال أو حكسوا بحي وهذا الكوحة ناكلين حتى نوحي أرتدي بكاء كل وقتك إنجليز حكسوا بحي إنجليز كل شيء كبرني بدي لكن أورجيني بريتش سوماليلاند هاي المعركة لو كفر حد ويري كبرني بدي أنا سيء بريتش سوماليلاند لو ده واقع وهاي حمبار سوي حيالا
badan oo Soomaalidu ay jeclayd oo ay ka mid tahay israaca Italian Somaliland iyo British Somaliland waxay xambaarsanayd wixii Soomaali ay jeclayd oo ahaa intaasi ay gaarsiiso Soomaali oo israacada in halkaa lagu gaaro geedka Soomaaliga horta wadada dheer aan ka sheekaynayo maalintii ugu horeysay ee ugu farxad weyneyd Soomaalina ay la wadaagtaa waa maalintaasay ahayd adduunku jab iyo farxadba waa leeyahay jabkii markaa xigay wuxuu ahaa sanadkii 1900 iyo 1990 markii la yidhi qarankii Soomaaliya waa burburay jabkii labaad wuxuu ahaa burbure qaar ka mida Soomaalidii ayaa dooday jabka saddexaad wuxuu ahaa xaq u eere qayb ka mida dhulkii Soomaaliya ayay qabsadeenoo ay gumaysteen saddexdaa jabba waa kuwo kale aan ahay aad iyo aad ugu weyn Soomaalina ay ku weyn yihiin kaas ahaanba dadka caawa halka fadhiya farxadda markaa ay xigtaa waxay ahayd 25 Oks 2023 iyo markii la yidhi nimankii gumaysanayay SSC waa laga saaray halkaasaynu maanta joognaa farxaddaasaan ku xukisay SSC oo samaysay qaatimo oo noqotay maamul ka mida xiriirka federaalka ee Soomaaliya meesha maanta aynu joogno halkaa way farxaddaa weyn waxaan u dabaaldegaynaa waxa weeye guushaa la gaadhay iyo waddadaa la hayo iyo waddadaa la hayaa sidii aan looga bal ku garan maayo waqtiga inagoo ka faa'iidaysanayna waxaan rabay laba qodob yar la keliya inaan ka hadlo caawa waxaynu joognaa magaalada Geneva dalka Switzerland oo ah xaruntii nabadda adduunka waxa aynu halkan u joogno oo aan ka hadlayno bini aadankana horumarkiisa sababta u ah waa nabad marka innaga kulligeen nabad baan ku baaqaynaa soo nabad ku baaqi mayno kulligeen nabad baan ku baaqaynaa saldhig bini aadanka waxaa u ah nabadda waxaan taageeraynaa baaqii iyo go'aankii garaadada SSC iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay ku baaqeen oo nabadda ahaa maamulka SSC nabaddii uu ku baaqay ayaan taageeraynaa waxaan kaloo iyadana soo dhawaynaynaa inkastoo runtii ay minority ahaayeen kolay dadku hadday muslim yihiin xumaan iskuma wada raacaan odayaal dhaqameed iyo shacab ka soo jeeda maamulka Somaliland oo iyaga laftigooda nabaddaas taageeray iyada laftigeeda waa soo dhaweynayna waxaa runtii aan jeclahay muhiim ah shacabkaas gobollada waqooyi degan waxaan oran lahaa runtii ma istaahilaan gacanta maanta hogaaminaysa muuse biixi oo mujrim ah oo dhigyacab ah 40 sano shacabka Soomaaliyeed dhiiggiisa daadinayay inuu horjoogo u noqdo ma istaahilaan waxaan ugu baaqayaa inay ku daydaan maamulada Soomaalida oo wada professorka iyo macallinku horjoogaha u yihiin ururka iyagu wuxuu u taagan yahay daryeelka baycadda ayuu u taagan yahay maleeshiyada muuse biixi oo madax gudida ah intii ay joogeen waqtiga ay joogeen gobolka Sool ka soo koob burburkii iyo dhibaatadii ay ka geysteen magaalada Laascaanood haddana dhibaato baaxad ayay waxay u geysteen degaamadii iyo dhulbeereedkii iyo meelihii ay ciidankooda fadhiisteen oo dhan problem sanitation iyo xaaluf iyo dhibaato deegaanka ay u geysteen ayaa jiray
ilaahay mahaddiis waa la iska dulqaaday dhibkoodana waa la iska fogeeyey dhammaanteen waxaa waajib inagu ah inaan barbar istaag iyo garab istaag aan u muujino maamulkaas si himilooyinka la hiigsanayo oo soomaalinimada ah loo gaaro aad iyo aad ay u mahadsantihiin waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waa salaamay marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda quruxda badan meel kasta waa ka timaadeenba aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaloo salaamayaa dadkii soo abaabulay xafladdan quruxda badan oo rag iyo gabdhaba lahaa iyo idinkana waxaan idin leeyahay khayr allah idin siiyo waxaan kaloo ducaynaynaa dowladdeenna soomaaliya ilaahay hanoo mideeyo ilaahay waddanka hanoo hagaajiyo ilaahay midnimadeena haynoo quweeyo ilaahay awooddeena dowladnimo haynoo soo celiyo waxaan filayaa inay maanta tahay xafladda tani Khartoum State insha Allah iyo inaynu taageerno midnimadooda iyo halgankooda ilaahay ha baarigo ilaahay ha mideeyo qulubtooda ilaahay isu keeno waxaana isu keenay oo mahadda iskale alla subxaanahu wa tacaala iyo dadkii ka shaqeeyey oo ay garaadada ugu horreeyaan isimada culimmada iyo dhammaan intii ka shaqaysay hawshaas iyo midnimadooda iyo waxdadooda iyo utaqaanaa isku tashigoodaba waxa kaloo aan meesha ka maray dadkii garab istaagay oo ay ugu horreysay dowladda Puntland iyo shacabkeedaba iyagoo aan u kala harin hil iyo hooba iyagana khayr allah siiya ayaan leeyahay iyadana waxa wax ku gaarteen baan u malay waxa wax ku gaarteen waa midnimada iyo isku tashiga iyo isaysiga iyo waxdada waxaan leenahay ku fara adayga oo isku tashada oo taageera dowladdiina iyo isimadiina iyo culimadiinaba baan kula dardaarmaynaa iska ilaaliya dulmiga dhammaan allah baarigo allah idin garab galo annaguna waynu taageersannahay dhammaan dadka marti sharafta marlabaad iyo saddexaad waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan sidoo kale bogaadinayaa qabanqaabiyey sidan quruxda badan ee bilan ee boqoran halkan u soo muujiyey waxaan u malaynayaa Khaatumow waxay bilaabantay waqti dheer bay socotay hawsheedu waxay ka soo bilaabantay 92 xilligan inta badan Soomaalidu baa maaragtay ku baraarugsanayn in maamul iyo hawsheeda la galo shirki Booxame 1 sidoo kale Booxame 2 96 meelaha waxaa kaloo sidoo kale jiray shirki Nairobi ee lagu aasaasay SSC waxaa kaloo jiray shirar badan oo meelo badan oo dalka iyo dibaddiisaba ka dhacay waxaa laakiin gumrug iyo miisaan weynaa shirkii caalamiga ahaa ee weynaa ee ka dhacay qalcadda Taleex sanadku markuu ahaa 2012 waxaa lagu dhidbay oo lagu aasaasay dhiig iyo dhimasho iyo dhaawac iyo dhismayaal badan oo jiray inta badan isteediyadu waxay ku dhismeen dowladda dhistay siyado qabowga maaragtay hawlyarada ku dhismeen laakiin iyadoo hawl badan bay martay oo badan baa loo maray dhismaheeda abaal iyo amaah midna maaragtay kuma iman nina saaxiib nahay oo abwaana oo suugaanyahanada waaweyn markuu tirinayay heesta calanka sameeyey abwaanageeya waa tuu ahaa calanka waxyeeliyo waaday udhamayo halis uga wardooro kala wadagii sidee ka warateeyey hadalyo ka waraabshay dhiigo weerarkaaga calanyahow inta wuxuunan kugu maqan kuwa xuranu weli iyo waraageesii qalas iyo waalid iyo dhashiisii iyo laga waraalaa uu dheeraayo waxaa ka mid ahaa weyn war intaan ka noolahay adaa naga wakiile kii waara noqono weligaa ah hoos mari sidaasay tahay garaadada iyo madaxda Khaatumo iyo waxgaradka iyo waayeelku waxay ku baaqeen nabadgelyo Soomaaliyeed ee joogta nabad iyo walaalnimo iyo wax wada ku noolaansho tiibaan adkeynana insha Allah
walba Soomaalida waxaan leenahay wanaag baan idin haynaa Soomaalida idin haynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin Sima
kaashanayo laba aabba wada dhalay iyo ubad walaala arrinkii yimaadaba isla kaashanayo isisiiya gacantee isla kaashanayo isisiiya gacantee indhahayga nuurkay ku ildoogsadino annahay sukay ladigee uu yahayo indhahayga nuurkay ku ildoogsadino annahay sukay ladigee uu yahayo dhabarkii adoogay kii laga abuuro naas iyo abaydimo kii ila wadaago dhabarkii adoogay kii laga abuuro naas iyo abaydimo kii ila wadaago sidanku ilawaa ma ahaan karayse sidanku ilawaa ma ahaan karayse indhahayga nuurkay ku ildoogsadayno annahay sukay ladigee uu yahayo indhahayga nuurkay ku ildoogsadayno annahay sukay ladigee uu yahayo kala fogiyo anna kali ahaantay u adkaysan maaye waayaha adduunka inna kala fog